waxaan rabaa un saddex qodobka koowaad waxaan u mahadcelinayaa si weyn ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ee caawa soo diyaariyey xafladdan qiimaha badan. way mahadsan yihiin ayaan leeyahay dhammaantood, ayaga iyo intii ku taageertay ee la shaqaysay oo ayaguba ay sheegeen hadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin. qodobka labaad waa laba fariimood oo yaryar. mid waxay ku socotaa shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee maanta jooga, iyo waxay u kala garnaqaysaa dadkii xorriyaddan keenay. meel kasta ha joogaano, ama cirifka waqooyi ha joogaan ama cirifka koonfureed ee anigu isugu kaydare, dadka maanta joogaan anagu ka mid nahay mudane madaxweyne. waxaa mudan ama ay ku habboon tahay aniga oo marka koowaad hambalyada la wadaagaya madaxdii iga horreysay oo leh dadka Soomaaliyeed hambalyo sanad guurada 64 ee xorriyadda dadka Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay calan la taagay, inaan xusno maalmaha quruxda badan ee macaanka badan ee ummaddan soo martay way habboon tahay. waana xusnaa mar walba, laakiin iyaduna waxaa habboon in aan dhinaca kale isweydiino xorriyaddaas dadkii keenay ee naf iyo maalba u huray, ujeeddaday u keeneen maxay ahayd? maxay ka rabeen? maxay ka doonayeen? himilooyinkii ay lahaayeen maxaa xaqiiqoobay? annaga oo maanta joogna oo wadcigan ku nool iyo waxay rabeen weli ma isu muqaaranaynay oo ma isu eegnay? himilooyinkoodii maxay ahaayeen? marka laga eego dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo Great Somalia iyo Soomaali weyn wax la yiraahdo u socdeen. ma haynaa qaarkood wayba ka sii fogaayeen oo haddaan caalanka la ina Shirintaniya Nairobi ba lahaayeen oo xuduudaheennan Soomaalida dadka Soomaaliyeed wayba ka sii fogaayeen oo meelo kale ba sii eegeen. visionkii noocaas ahaa iyo aragtidii noocaas ahaa maanta maxaan ka haynaa? waa qodob. dadka Soomaaliyeed oo mida oo walaalo ah oo hal calan leh oo hal dawlad leh ayay u socdeen. maxaan ka haynaa? muwaadin Soomaaliyeed oo xilligaa markay joogeen ayagu joogeen aan hal qof oo Soomaaliya oo qaxooti oo adduunka ma jirin xilligaas. Soomaali qaxooti ah oo dalkiisa ka cararay ma jirin. laakiin maanta in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ayaa qaxooti ah oo dunida ku dalanbaabaya iyo caruurahoodii. dadkaas hadday ka soo baxaan qubuuraha oy su'aalana weydiiyaan kama jawaabi karo, way nagu adkaanaysaa. war wixii aan idiin dhiibnay xaggeed geyseen? way nagu adag tahay. waa saacaddaa yar buu leeyahay, laakiin waan soo koobi. waqtigaa yar buu leeyahay xiriiryaha. aniga waxaan rabaa inaan idhaahdo mararka qaarkood inaan xafladahan dhiganoon heese ayaamo rag sameeyey iyo gabdho ay sameeyeen qurux badnaa la qaaday aan ku soo celceshanoon maskaxda kaga raaxaysanaayey sax maaha. waxaa la yidhi aabbahay baa 100 halaad lahaa, dameer baan leehay baa ka ron. anaa dameer laa ka ron. 100kii aabbaha wuu samaystay, laakiin adigu maxaad samaystay? annagu maanta xaggeen joognaa? maxaan samaynay? qur'aanku ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum. meeshaas rag baa ku tegey, waxay rabeen way galeen, waxay sameeyeen way sameeyeen. annagu maxaan haynaa?
suuratu yunis sheekh calina waa joogaayo culimmadu hortooda laguma sheegee ilaahay wuxuu ku sheegay markuu ilaahay sheegay walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lamaa dalamuu quruuntii idinka horreysay markii laga hadlayay reer maka markay dulmi galeen ayaan halaagnay wajaa'athum rusuluhum bilbayinaati wamaa kaanuu liyu'minuu wixii loo sheegay oo dhan way diideen deedna ilaahay wuxuu yidhi waan halaagnay sidaasoo kale aanu mujrimiinta o dhan u halaagnaa aayadda ku xigtaan u jeedaa uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi linandura kayfa tacmaluun ilaahay wuxuu yidhi kadibna idinkaan idiin dhiibnay arrinkii iyo taladii waxaanan eegaynaa waxaad samaysaan ayaan eegaynaa ilaahay wuxuu eegayaa nicmadii uu ina siiyey nicmat alislaam waxaa ku xigta nimcat alxuriya iyo dowladda ayaa waxaan ilaahay dad siiyo ugu weyn nicmadii ilaahay ina siiyey geengeynay horta ilaahay wuu inagu eegayey deedna wuxuu fiirinaya bal waxaan samayno haddaan jidkii mujrimiinta marana sidii mujrimiinta laynoo halaagay waad ogtihiin hadda maanta inaan yaxyaxno oon guryaheenna iska fadhino oo aan ka gabanno soo istaagno inaynu heesihii iyo awowyahan kusoo ceshan laakiin dadka soomaaliyeed runta in laysu sheego waaye sidaan inama anfacayso taas dadka soomaaliyeed aan leeyahay waxay ahayd xafladahan way fiican yihiin laakiin aan ku darno qaybta xisaabtanka iyo inaan annagu isweydiino xaggeen geyna wixii laynoo dhiibay wixii laynoo dhiibay waa ninka waxaa sheegay saaxiibkay saalax baa sheegay ninkii qarankan soo tababartay ee awowyadiis u dhiibteen inuu diyaaradaha dalka ku difaaco ciidanka cirka laga dhigtay caawa xaggee joogaa maanta xaggee buu usii jeedaa waa runtiis dowladdii soomaaliya shacabkeeday laysay laakiin asagii muxuu sameeyey hadda asna shacabkiisu laayay dadkiisu laayay waxaan qabaa aniga waxaa khaldan wax weyn ayaa khaldan aan xisaabtanno intaas waan leeyahay fariinta kalean dirayo qolo kale aan u dirayaa oo riyoota iska riyoota qolaa riyootay waxay dhaheen taariikh baa naga khaldantay taarikhda ansaxayna waxaan recorrection ku samaynaynaa historyga uu naga khaldamay marka taarikhda ansaxayna qoladaas waxaan leeyahay haddii qola wax ka khaldantay oo history uu ka qaldan yahay anagu naga qaldan yahay ayaan la isdhaqdhaqaajin haddii qola wax ka maqan tahay oo u baahan tahay inay wax ka qaldamay saxdo annagu wax naga qaldan yahay oo wax naga maqan yahay aan hoos u dhigno halla caqligu ha soo noqdo annaga wax naga maqan yihiin idinka wax idinkaga maqna marka waxay la tahay qoladaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha ku qasbina inay hadlaan dadka soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay dib xisaabtamaan dadka soomaaliyeed yaan lagu qasbin inay taariikhdii ka qaldantay ay saxaan marka qoladaasna intaasaan leeyahay may hay fahmaan ama aysani fahmin anugu soomaaliya waxaan kusoo gebagabaynayaa gabay buu kusoo gebagabeeyey iyo maanso hogaamiye firdhiye aniguna ninaan aada u jeclo oo gaariye la yidhaahdo ayaan mar walba oraahdiisa kusoo gebagabaynaya oon jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo 64 sano ma yara waa retire waa runtii qabri in lagu jiido unbaa u dhiman qofkii intaa joogo inkastoona aan ka cudur daaranayo dadka qaarkood oo weli yar yar laakiin meesha fadhiya waxay la tahay qof 64 sano jira qofkaas caqli uma dhima da uma dhinna goor uu caqliyaysato uma dhinna bisayl uma dhima wixii uu haleeyo kasbuu u haleeyey wuxuu yidhi marka haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ileen wax ma dhaantid geed marka waxaan rajaynaya inaan geedaha dhaami doono